wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland ee dafir MOU ayaa haddaba doodaha ka kala dhashay Twitter-ka iyo TikTok ayaan wax idinka daawadsiin doonaa bal marka hore ila daawo doodan aadka u adag ee dhalinyaradu ay wadaagayaan. hankiinu haga koro inaad reer caydaan hankiinu haga koro inaad reer eryataan hankiinu haga koro inaad shakhsi weerartaan baraha bulshada waxa ku jirta isagoo dad gooniya kicinayo oo la reer awdalow kaca qaaraan ururiya social media imanaya la jeedinayo dhalinyarada active-ka ah Somalilanderka imaadereeyal xaqaadina xil weyn loo dhiibay oo arrimaha dibadda ma aha xil yar oo easy oo maaragtay cid kasta loo dhiibi karayo dekada berberaan la yeelanana 18 aanu heshiis kula jirnay berberaan yeelanana kobcinanayo dhaqaalaha iyagu dhaqaas soo maraya iyo maraakiibteeduba dib bay Djibouti istaagtay halkaas u taagnaa maantana ninkii Abiy Ahmed u hanjabayay ayad xukuumadeeni hoos gashay yaa laga hoos galay Abiy Ahmed baa laga hoos galay maxaa la diidan yahay MOU ga la diidan yahay hadaba arinku ma aha MOU kaliya ta maaha qarannimada Somaliland ayaa la diidan yahay waa sababta nin aan ku ogolayn oo awdal isteeda oo aan aaminsaneyn jiritaanka Somaliland iyo qadiyada Somaliland oo maanta wasiirka arrimaha dibadda u yahay waa sababtaas weeyaan haddaba waxaanu aaminsanahay amba aanu arkaynaa qarankii aynu wada lahayn ee Somaliland ee uu raadinayay aqoonsiga ee meesha wanaagsan marayay maanta Mareykankina iyo Ethiopia hawada ka baxday Mareykankina qoraar ku soo saaray waynu aragnay Somaliland hadda qadiyadeedii iyo qarannimadii Somaliland waa kuwa muddo bil ah ku soo idleeyay marka ninka ku doodaya qadiyadow inaad Somaliland way halay ku socoto meel aad u qurux badan maaha Somaliland waxay u baahan tahay badbaado nin kasta oo Somaliland u damqanaya qarankan u damqanaya reeraha eriyan qarankaaga maanta eeg yani mashquulin kalena way socotaayo dhalinyarada la mashquulinayo oo laga jihaynayo xukuumadda laga jihaynayo aragtiyo kala meesha yaacayo oo waxa la jeeynay inaad ku jihaysma qarannimada Somaliland ku jihaysma qaranka soo badbaadin lahaydeen ku jihaysma qarankan badbaadin iga baahan yahay maanta inaad reer caydaan oo reer afki ku hadashaan waxa ka qurux badan warseen u badbaadinaa Somaliland ma taagna maanta reer yaan reer lagu jihay inaad aflagaadayso caydo in lagu jiheeyo inaad inuu dhexdiisa qabsataan waxa la doonayaa si kasta oo laga jeedin karo indhaha xukuumadda in lagu jeediyo marka aragtiyaha gaaban ee social media imanaya la jeedinayo dhalinyarada active-ka ah Somalilanderka imaadereeyal xaqaadina hankiinu haga koro inaad reer caydaan hankiinu haga koro inaad reer eryataan hankiinu haga koro inaad shakhsi weerartaan hankiinu haga koro inaad qof personal u haystaan hankiinu ha noqdo mid qaranka Somaliland focus ku ah inaad Somalilandertiin aamina in qarankan inuu aad leedin aamina in aad ka badbaadin kartaan xukuumadda aamina siyaasad togan oo hufan la kaalaya oo aad ku asturi kartaan maanta qaranka Somaliland laakiin marka aad adiga aad dhiiri gasho oo aad reer eryataan amba shakhsi eryato waa tala doonayeen aad gasho waad u gashalki doonayeen marka tan kaliya maanta mucaarad adeegna la timaadaan oo inuu qarankan badbaadino oo dhalinyaro isku duuban Somalilander jecel qarankooda dalkooda jecel oo intijaaha mustaqbalkooda dalkooda jecel qofkii ay u gartaan hadhow toole qofku inuu qarankooda maamul karaan u dhiiban karaa maanta cidba qarankii Somaliland timid cidii waxaan aragnay in qarankii Somaliland baabiisay in qarankii Somaliland ay meel fog geysay baan aragnay in qarannimadii meesha ka baxdeen aragnay in jiritaankii Somaliland hoos u socdeen aragnay kelmad baan igu soo gabagabeynaya shalay toole nin baa garaaduu la yiraahdaa ayaa cadda gudo oo afka xukuumadda ku hadla xukuumaddan gobolkeedu sii dhacay inuu arkayno dugtaynay gurigeed baaday nin garaaduu la yiraahdo afsama iyo dowlad deegaanka Soomaalida degan shalay la saacanood buu yimid ونك الله هرجيسان صومر نيو أرنتنا كشرنا يو وحنا نبضينا أمبو ده هذا الشيء حكومة السومال لين يدل بانته ما أنت وح فرديا تشيجا وحوك قيب قادنا يا تدك الديجان كدعولي تدك اللي جوه السوقي أيو ضفيريا أو ولا درين يا هاي ما أنت لي قلنا لي بوليسكي ونك اللي راينا أكتر وحفلة قبنا يو برديقة هل كاسو وحكوضة marka dadkeena inay wax fahantaan qarankii Soomaaliya halka laga soo weeraray halkii wax ka socdaan say wax u socdaan wax kasta eega marka wariyada channel oo salaamay long time soo dhow
dalka la badbaadiyo ay leedahay hadhow tolo wax qabasho ma leh marka inaad arintii hadhow la isku dhici lahaa iminkay qabasho leedahay in laga qabto ninkan meesha haddii kale waa inuu mowqifkiisa caddeeya 24 saacadood gudahood hadduu caddayn waayo waxaan ku dhawaaqaynaa badbaado qaran baan ku dhawaaqaynaa محمد وحنو قداد mid dhow iyo mid fog baan ka leeyahay qaranka Soomaaliland dee aniga noqoto shakhsiyadeeda iyo haddii Soomaaliland noqoto marka inaad anigu wax igu soo noqdana kama hadlo aan arki maysid anigu inaad intan halka ugu mucaaradayo oo inay aaminaan waxa weeyaan maxay aday wasiirka arrimaha dibaddu maanta wuxuu ka hadlay weyn ogne haddaba su'aasha meesha taala waxa weeyaan wasiirka arrimaha dibaddu hadalka uu maanta yiri ma isaga si gaar ah wax loogu qarsanaya oo wasaaradda arrimaha dibadda xirsi baa loo magacaabo oo si dadban loogu magacaabay waayo sababtoo ah xirsi dawaakii markii uu Djibouti isku qaaday ninkan wuxuu noo sheegay maanta inaan waxba ogeyn isagu horena wuxuu uga mudaharaaday oo ilaa Mareykanka wixii uu ka sameynayay aynu ogeyn waxay ahayd MMU marka hore ka mudaharaaday meesha taala ma dadka marka maxay ayaa been loogu sheekinayo ayna waxba ka jirin wixii xasan sheekh aynu ogeyn meesha uu gaarsiiyay wasiirka arrimaha dibadda hurdada u diiday ee Soomaaliya fiqi xasan sheekh jimcaad kasta masaajidka waxa weeye maxay ahayd uu kaga dhaxlayay Masar iyo xaaladda Itoobiya halka uu gaarsiiyay xasan sheekh meel kasta isku qaaday ayaynu aayar maanta isku niraahna maxay ahayd waa beeno waxba ma hayaano anu halka waxaan xaqiiqatan hadda hadalkiisa ka aamin laba mid inkastoo hadalkiisu soo dhaafay mid waxaan ka aaminay horta inaan waxa weeyaan maxay ahayd waxba ka ogeyn oo wasaaradda arrimaha dibadda magacuyaal u yahay mid kalena waa laga yaabaa inay jirto oo waxanba in la soo laalaabay oo xirsi uu Djibouti ku soo shiilay xisbiga wadani hawshiisa halka lagu soo dhameeyay arintiina Soomaaliland hoos loo dhigay waxa weeye arinta Itoobiya barta lagu iloobay waayo wasiirka arrimaha dibadda cidii dhageysatay maalintii dhow wakiilaha MMU hawshiisi waxa weeyaan waxaad lagu haystaa maxaad Itoobiya ula hadasheen Itoobiya waxa weeyaan danteedan ula hadalay wakiina laha dantay ula hadlay xasan sheekh iyo maxay ahayd fiqi Itoobiya waxa wada galay weyn ognay markaan maadareer waxa weeyaan aynu kala garanno shayga la yiraahdo maxay ahayd Soomaalilandnimada inuu nin walba waxa weeyaan isku qaado maaha wax aanu isagoo xaqiiqda iska indhatiraya okay anu markaan maanta xaqiiqda iska indhatiro aniga shakhsi ama jeclaysi ama nacebaysi u cararaya bari soo markii Soomaaliland daaqada ka baxdo xageenu kacaya marka maxay tirtaa shakhsinimada jeclaysani uni marka waxa weeyaan si akademiya oo aqliyana aynu doodno waxa jirana aynu runta ka sheegno si waxa weeyaan marka aynu u toosino dee xukuumaddii meesha joogtay waana islaamiga dhamaantiin baad u mahadsantahay niyo anigu idinku dheeraan maayo laba kelmadood baan odhanayaa maxamed walaalo waan idinka digayaa in badan baan dhageysanay ilaa 2 hours baa laga hadlayay arrinkan wasiirka arrimaha dibadda qolooyinkii xaggana dee nala joogay xisbiga wadani ka tirsanaayo iska cararay marka waxba kama oga marna waxay ku leeyihiin wasiirka waa laga qaranayaa waxan horta ama laga qariyo ama yaanu ogaan su'aasha isweydiinta leh waxa weeye markuu berigii hore markuu ka soo horjeestay maaragtay heshiiskana uu dadka ugu baaqayay in dhulka la iibinayo wadan kale laga iibinayo isagoo wax arag muxuu ku doodayay waa su'aal isweydiin leh dadka caqligooda in la caayo in adeer maaha soo maad garan ninkana waxa weeye nin xil weyn loo dhiibay oo arrimaha dibadda de maaha xil yar oo easy oo maaragtay cid kasta loo dhiibi karayo anigu shakhsiyan waxaan arkay documentaro fara badan oo aanan la sheer gareyn karin oo ku saabsan dekada saldhigaa la siinayay bahalkii Ethiopia niman fara badan oo madaxo xisbigan wadani ka tirsan aan saaxiib nahay oo hoostaas ka wareysan jirnay oo aan weydiin jiray xagga ay ugu dambeyn doonto heshiiskan maaragtay MOU-da waxaan ii sheegay habeen dhaweed aan la hadlayay waxay igu yiraahdeen heshiisku wuu socdaa qodobo yar baa wax laga bedelayaa laakiin heshiisku waa heshiis jira marka nimankani waxay ku doodayeen iyo wasiirkani wuxuu ku hadlay wax isla maaha oo caqliga dadka la caayanayo nagu dad jaahiliina ma nihin dad wax walba maaragtay qaadanaya ma nihin wadankana waa wadankayagii dee lexjeclo fara badan baan maaragtay wadanka ka leenahay xukuumad kasta oo timaada maanta
dee hadday waddadii maaragtay ictiraafka ama maaragtay horumarka somalilan ay ka leexato dee khasab waa in la toosiyaa oo laga hadlaa waxyaabahay ku khaldan tahay marka rag fara badan oo iga aqoon badanna meeshan way joogaane arrimaha gudaha magacyaalkaaba ayaa magaciisa la yidhahdaa arrimaha dibadda yaalkaasi arrimaha waxaa jira wasiirda maxay tahay dibadda ah waa arrimaha dibadda inoo qaabilsan laakiin magacyaal ah absolutely arrinkan maxay tahay wasiirka la weydiinaa uu magacyaalo wax allaale iyo wuxuu kala socdaa horta sida bitirto Axmed Axmed wad fahmi Soomaaliya marka luqadda ku hadlayo wasiirka arrimaha dibadda waa ninkii Djibouti tagay waa ninkii muxuu haayay halkaas saxida ka soo qaatay waa ninkii Xasan Sheekh Maxamuud la kulmayay waa ninkii muxuu haayay lagu soo dhaweeyay Djibouti waana mustar ninka magaciisa la yiraahdo xirsi ايش شرفت يا كرامه مدن بالوين تمحي تجري بيرسي خالقين وخالقنا يا انت لو دورتay ninka magaciya arkiif yadii lagu ma wareejin xogtii maxay tahay arrimaha dibadda lagu ma wareejin siyaasadda dhameed lagu ma wareejin magaciyaal kaliya meesha jooga iyadoo inta fahantaan ayaa marka hore waqtiga ka qaldanayba waxa weeyaan hadalka laga ma leexleexday wasiirka wasiir wuxuu xafiis lama wareego kaliya waa magacaayada ka timid magaciyaalka la yiraahdo wasiirka arrin qoray qalad ma waa waaqع toos oo jira weey meel allaala iyo meel marka wasiirkaasi ee kamid dalweydii waxa lagu wuri arrinkii MAU waxa lahayd ninka shalay ka soo jeeday imikana waxa joogtaa waa lagu wuri halkii aad shalay ta ku diidaneed isla safaaradii waxaan jira wasaaradii ee maanta wasiirka tahay maxaad xaqaad yani ay ku dambeysay mase aad aragteen baa lagu wuri arrimihii wala xildhibaan baa weydiiyay wuxuu ku jawaabay anagu wax dokumentiya iyo wax heshiis ay iyo wax allaala iyo waxaanu aragnay ma jirto how can be possible c'est possible ku noqonaysa marka social media tala waxay talabaan ku wuri muxuu hayay TV-do dhanba sii tahay oo baarlamankii waxa ka hadlay maxay tahay Ethiopia oo Kenya naawulayay marka la saafkarteen in la yimaado sabay aqliga u gasha wasiir dhan oo arrimaha dibadda siyaasadda loo daba fadhiyo inuu dhahdaan baba aragba indhaha ma saarin وسحني نكا مسكين كهالسك دايو أو نكا سنة بدو ردوديا ودبنا وسحني هاي شعر أنا لا كان بالله حري وحويا باشا كدي برسوا محيط يا لوخي اللي قلنا يوم محيط عند لوخي يامي لكن وسير كتوسكا سمرون معايا شرف يا كرام المديين معايا ولا يبلغ تاعي حقيقة تمشينا مركب محمد أحمد وحق يا حقيقة ماشي تهلا وحوي mid horta waa mid waata xukuumadda madaxweynaha iyo xukuumaddii hore tagtay midna waa wasiirkan horta isaga waan ogna wuxuu anigu waxa baraha bulshada waxa ku jirta isagoo dad gooniya kicinayo oo la reer awdalow kaca qaaraan ururiya lacaga ururinaya ka kaca wasiirada hay soo casilaan wixii awdal ka soo jeedo is casila madaxweyne ku xigeenka is casila nin sida u hadlayo gobolkayga go'alay marka hore anigu imatalayo ima muuqato oo wax weyn dadkii kala qaybinaya wasiir marka lagu leeyay wasiirku waa wasiir ummadda oo dhan wasiir u noqonaya laakiin dadkii kala qaybinaya hadda anu hudaanahay waxaan doonaan ku hadlaa meelaha berri toole intaan ku imaado dan gure waan ku matalaya oo madax baan ku noqonaya adayna casnimo ku tahay waa inaad talaatiiba tee soo qabyaaladiisatay iskaga yaridaadee ilaa wax weyn ba meeshan yaalay isaga taa waxba ku dheeraan mayno inagu madaxweynayn doorana isaga ninka wasiirka ma inaan dhaarsan madaxweynayn dhaarsana inagu madaxweynaha Soomaaliya la xisaabtamana horta xukuumaddan way cusubtay oo waxba ma jirin sida uu boorsare sheegay waa runtii in dhulka loo yara dhigo oo aan mucaaradad hor loo adag laga horkeenino lala shaqeeyo waliba maadaama wadanka xaalad ku jiro oo dhinac walba bari iyo galbeed ilaa Raseefeeri uu dagaal ka furanyay in lala shaqeeyo la taageero horta way fiicanta laakiin ba meesha taala arinta inaga markaan shacabka Soomaaliland ama wadani ahaw ama kulmiye ahaw inaga hal mid bayna midaysay waa qadiyada Soomaaliland maxay dan inoogu jirtaa waxay dan inoogu jirtaa heshiiskaas afgarad in la dhameystiro heshiiskaas hadan micno weyn ku fadhiyi lahayn reer Soomaaliland
intan ogay dhibaato maynaa u marneen oo dagaal ay naguma soo qaadeen filadhisteed waad arkayseen iyadii bay Itoobiya jiidanaysay maxaa la iraahdaayay Djibouti waad arkaysay xataa heer waxaynu gaadhnay dadkeena shacabka ee muwaadiniinta ee siyaasad ku jira waxba geysan la ugaarsado la laayo ma dafiri kartaan booris markhaatibaad ka ahayd in xamar iyo garow iyo meel bal lagu dilayay Itoobiyaba وحتى جناح سجني تشجع عجف لجني ما تضفر كرتان أرنتا إيه ميوجا درتي بلو بياتيني تذكر موادين أنت هذا بمد بقى ماشى طالع والسير هذا الكيس هو إسقلافي مروح له يحبنا لو جمهور يشون يحبنا لو جمهور يجبن مرنا وحله محل هذا أرنتا إيه ميوجا حدي أيضا إنه وجود شرطه اللي بقى الدولة ده وضمض يندرس كنان أيضا وجود شرطه وأنا لما يستران إيج وضمض يدرس كنان أديك محاك عقري أدوك وضم بعت وضم كلا أوتنا سلامي شرو قصب maaha waxay Djibouti danteedu ku jirto inuu ku hogaansamo qasab ma fiilad state waxay danteedu ku jirto inuu no waa inaad adigu wax doonaysid wadankaaga wax doonaysid dagaalada adduunka imika ka furan dagaalkaas wax la yiraahdo ganacsiga siyaasadda la yiraahdo isku wada dilaya kuma qusayso wadamada dariska adu wadan la mid ah baatay inaad smuujisid muuqato oo tartantid weeyii sidii Xasan Sheekh oo kale hay ugu noqon waxa weeye anaga kursiga Soomaaliya kursiga maxaa la yiraahdaa midowga Afrika u tartamanay laakiin Djibouti baan u tanaasulay muwaadinkayga u tanaasul Sheekh Xasan Sheekh lama baahna runta aan isku sheegna taas waa taas Boris mid buu ku qalday ku saxsan Boris mid ku saxsan waxa weeye hadii meeshan wax la dhiibay de waa inay xukuumadii ila ragii may dhiman shalay kursiga ka dageen wasiirka hore arrimaha dibadda uu joogaa kamuu dhoofin dalka Hargeysa ku suganyay madaxweynaha hore qaranka Soomaaliland waa joogaa waa in ay arintan dhexdooda ku dhimana ma aha masiirkeenu in laba xusbi ku dhex baabaa ma aha waa in ay raggaasi ka falceliyaan wixii ay dhiibeen wixii is afkaradkii heshiis dhamaystiran ma saxiixin is afkaradkii wixii waraaqay ku wajiyeen خاي ولا واشع ما تقدر ولا الأسف حسن ويريسوك اك شعب ما نقنصه ومدحدين شاي ويجوغان maxay dhiibeen eeganeen inagu shacab markaynu nay sida u xisaabtana weeyii madaxweynuhu hore muxuu ka tagay wasiirkii hore muxuu ka tagay maxaa la wareejiyay arintan halkay ku dambeysay taayna in daba hadda wuxuu ka tagay walaal adiga sheegay ba adigu walaal qaali intaas oo dhibaatay intaas oo dagaal inaynu u galnay waxa la inagu soo duulay intaynu dagaalameynaba inayna been ahayn deynaa halka ku yar saxay an yara dhamaysto walaal ka baqay anigu maxaafad